السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب بيال مeel kasta dunida ka joogtaan ku surwaada maanta iyo barnaamijkeeni toddobaadlaha ahaa ee aflaamta hindiga toddobaadka iyo waxyaabaha ugu waaweyn aflaamta hindiga ayaanu soo qaadan doonaa filmadii toddobaadka soo baxay Sanjay filmkiisa uu wacdareeyay wali waxaanu soo qaadan doonaa Shahid Kapoor iyo aabihii oo taariikh ku sameyn doona filmka soo aadan ee Shahid Kapoor sportiga uu jili doono Hrithik Roshan oo gacan u taagay aktarka caanka ee Akshay Kumar waxa uu yiri Akshay waan kugu tuuray cimaamada yacni Hrithik sanadka 2019 si cad ayaa meel loo saarayo Akshay ayaa ah ninka ugu khatarta badan Hindiya wali waxaan soo qaadan doonaa Hrithik Roshan oo loo doortay ninka ugu shidan ninka ragga ee ugu shidan Aasiya oo dhan waliba muddo 10 sano ah wali waxaan soo qaadan doonaa qodobo kale oo qayb ka yahay Amitabh Bachchan iyo wiilkiisa Abhishek oo toddobaadku ay u tahay toddobaad qaas ah Ajay Devgan wali wuu boqolaysan yahay Kareena Kapoor oo ay u sheegtay uurkii ugu horeeyay ay qaaday xukumu waxa qofkii ugu horeeyay oo ay u sheegtay uurkii ugu horeeyay ay qaadaysay ma Shahid Kapoorkii jecel kala dhaxin jiray wali waxaan soo qaadan doonaa Akshay Kumar oo daaragtada yaryar hadda u jeestay maadaama daaragtada waaweyn ay isagu fursad siinaynin wali waxaan soo qaadan doonaa qodobo kale oo waaweyn oo ku jiro filmka Amir Khan ee Dangal oo loo doortay filmka blockbuster-ka muddo 10 sano Hindi oo dhan iyo qodobo kale oo muhiim ah oo toddobaadka aflaamta ku saabsan ayaan soo qaadan doonaa أصحابي channel وحسنا نوس سكراب قرية سياد وهشان وقت كستي ساعات كستا معلوماتك وجودن بيا فلانتا وأنا برنامج تضبط لا أو أنا قلت لك قال لي إن أنا صار ورينا دعوة وجوا وينا تضبط كفلانت دي كدعة أيام كو قاعد قدرنا برنامج كنا كانوا وين وأسبوع لا برنامج كان waayahay toddobaadku maxaa aflaamta Hindiga ugu waaweynaa toddobaadka waxa soo baxay film la yiraahdo Benibad oo ah film uu wado aktarka weyn ee Sanjay Dutt iyo waliba aktar kale ee reer Kapoor ee Arjun Kapoor waliba gabadha lagu magacaabo Kriti Sanon ayaa filmkan kula jirto filmkan ayaa box office-ka si fiican ku bilowday oo dhaqaalo laga helaya waliba toddobaadkan filmka wax isla kowsadeen oo ay box office-ka ku wada tartabeen yacni markay filmo soo wada baxaan way isku dhacaan oo yaa dhaqaalo badan soo xareeyay oo yaa guul badnaa oo yaa aad loo xiiseynayay oo yaa daawasho badnaa in badan baa laga fiiriyaa waxay isku dhaceen filmka Betty Badney Aurwah oo uu wado wiilka hadda waqtigiisa ku jira laga yaabay yahay iyo waliba labada gabar ee inuu yareysan waqtiga inuu haysto filmada Hindiya Hrithik Roshan ayaa filmka atoora ka ah oo waliba Bhumi Badnaker oo ah gabadhii cayileed ee cayilka badnaan jirtay ee hadda isqurxisay alla maxay caatinimada iscaateyntu ay wax qurux badan tahay gabadhan Bhumi Badnaker hadda Google geliso ama YouTube aad geliso waxaad arkaysaa iyadoo buuran waliba hadda sanadkii 2018 bay ahayd iyadoo aad u buurneed wax badan miisaankeeda dhinto gabadha qurux badan bay ku soo baxday Bhumi Badnaker baa la yiraahdaa waxa dadka lagu diiday filmada Hindiya jira ee meel dheer ka soo laabtay iyadii gabadha Saif Ali Khan u dhalay Sara Ali Khan hadda tirishada ah gabdha buuran bay ahaayeen laakiin maanta aad bay qurux badan waa isira caateeyeen waliba filmkan waxa ku jirta gabadh u dhalay aktarkii weynaa ee JK Bande ee Ananya Bande baa ku jirto JK Bande cunugiisi waa niraade JK Bande gabadh u dhalay Ananya Bande bayna film ku jirta marka waa film khatar badan oo Hrithik Roshan wiilkan la yiraahdo iyo labadan gabar ay dhexda ugu jiraan Bhumi Badnaker iyo Ananya Bande baa filmka wada jiraya filmkan waxa laga soo minguuriyay filmkii hitka ahaa ee sanadii 1978 marka filmadan baa toddobaadkan u saarnaa Hindiya oo shinooyinka Hindiya laga daawanayay waana filmka uu waday aktarka caanka Sanjay Dutt iyo ninka la yiraahdo Arjun Kapoor ee lagu magacaabo Benibad oo lagu daray filmka kale ee ay dhalinyaradan yaryar ee hadda filmadu cusub newcomer-ka baa loo yaqaan kuwa cusub hadda filmadu ku soo biray wadeen kala ah gabadha uu dhalay Master JK Banda iyo waliba Hrithik Roshan iyo Bhumi waayahay waxyaabaha kale ee ayna toddobaadka ugu waaweynaa aflaamta Hindiga waxa kamid ah aktarka caanka Shahid Kapoor ayaa ku faraxsan in aabihi uu kula shaqeeyo Pankaj Kapoor filmkiisa soo aadan ee remake dhawaan bay ahayd markii uu Shahid Kapoor lacag badan ku soo xareeyay filmkii xogaa muranka badanna ka dhashay isagoo ku jiray nin dumarka dhibaateeya 10 xabo sigaaran afka gashanayay oo loo arkay dhaqan xumi uu ku hoodo dadka inuu dhaqankooda bedeli kara dadka waxyaabaha cinka markay daawadaan walow isagu uu qeyl ka dhigtay waxaad daawateen dhowr jeer cali dheere oo ah ninka aan wada jecelnahay wuri Amitabh Bachchan oo legendtigeen ah oo waxaad aragtay film badan tuugnimo ku jiraya oo taas maxay ka dhigan tahay Amitabh Bachchan ma tuugba maya waad aragteen Shah Rukh Khan oo gabar sar ka tuuraya wuxuu soo qaaday filmkii Kajal iyo Shilbashit ay kula jireen Bazigar wuxuu yiri Shah Rukh Khan oo tuuray gabar baad aragteen wuxuu tuuray mugta Shilbashit buu tuuray oo masar dheer ka tuuray si uu Kajal ula wareego oo ciidan uu kaga caarsado wuxuu leeyahay Shah Rukh Khan ma dilaaba wuxuu yiri marka filmkiisi wuxuu difaacayaa hadda dhawaan uu keenayay كبيرسين أو دقالة بدن سو حري لكن وحلو جو إيدين ودخن حمي بدن كو فيلم كو سمين يو شهيد كبور سيدا إنه دمر كا دبعتيو ولي بنا ويهين خمريستا دختر خمريستا
oo isagoo khamriyeysanna ama cabista ah waliba qalina sameynaya taas oo dhibaato badan keeni karta laakiin hadda filimka uu soo wado waxa la yiraahdaa filimkan waa film sporty oo dib loo sameynayo waa film sporty cricketer amal uu yahay ninka kan waxaana filimkan kula jiri doona la yiri abi baa la cadeeyo bankaj kabuur abi isna actor hore buu ahaa haddaba abi baa cadeeyo inuu aad ugu faraxsan yahay inuu wiilkiisa filimkan kula shaqeeyo runtii wuxuu yiri waxay tahay inaan is adkeeyo leeyahay yaa waa inaan is adkeeyo maxay la si qiiraba ii tahay leeyahay inaan wiilkiiga filimka kala shaqeeya marka shaydi abi wada sawaran wada arkaysaano filim bay soo wadaan waxa hubaala Akshay Kumar inuu hadda yahay actorka ugu fiican Bollywood Hindiya Shahrukh iyo maxaa la yiraahdaa Amir Khan iyo Salman Khan iska dhaaf ninka la yiraahdo Akshay Kumar hadda waa actorka ugu qatarta badan Hindiya wuxuu keenaa filmo dhaqsi badan waliba filmadiisu way guuleystaan waxa laga yaabaa sanadka waxaad arkaysaa 4 bil 5 bil gudaheeda 3-4 film buu keenayaa ninka la yiraahdo Akshay Kumar waa wuxuu kaga fiican yahay actorada kale Bollywoodka oo hal san hal film la maqnaanaya ninkan nin khatar weeyaan waliba waqtigan asaga ayaa haysta Bollywoodka Hindiya marka saddexda qaan laga tago يا أمير خان شيروغان إيو سماق مركز لقى تقو هيريتك أيا سواء فريو رجال لقى عبصة وجوا وين كبولود كأ لكن وحلو لما أنت مع الهيريتك روشن وحامل ساري صدق بقى بريه هيريتك بقى على عداوك خطر بدنا لكن هيريتك جيبه ميل بالله ساريو وحل الهيريتك روشن وأكشي كمار بيل بوكو ساري وأكشي كمار وانيكا بوكس أوفيس كا دخله وجوب بدك هي في المدي سويان سنة كلا وقت مسيالكو مركز أو وكجوا بينيكا لو جم عبو هيريتك روشن وحنو هيريتك أو شاقي سيدابان إنه خكرة بقول له أكتر كأن ما أنت هاي هدي وسنجرين هدي أي سنجرين صاحبه أنا يقفي عن يعني وحول له هدو سنجرين خوف أنا يقفي عن أو أنا ربنا نكاس جارو ما نقول لي بور أكتر كأن ما انتهي مركو حلو وقرسيه هاي إنه أكشي كمار السنة كوي هاي نين يسوي كفي عن سيدو كلا شهيد كبور يسوي نوها نين كلا يسوي كفي عن السنة كان إيو نين اللي هذا فيكي كشال سد هذا السبر أيو صار يسوق نجاي أكشي كمار إيو شاهد إنك كا وحول له هدي أي سنجرين صاحبه أديكو كافي عن سيدابات إنه خاطر تقف كاد ما انتهي يعني ترتن أياجرة qofku markuu tartamo yahay wuxuu ku dadaalaa inuu qofka ka fiican ka hor inuu dhaafo marka sidee baan ku noqon karaa buu leeyahay sidee baan u noqon lahaa buu leeyahay actorka aan maanta ahay hadii aysan jirin saaxiib aniga iga fiican macnuhu qirtay in sanadkan Akshay Kumar isagu ka fiicnaa Akshay Kumar ayaa keenay sanadka kanu laba film oo waaweyn waxa film uu ahaa filimkii Mission Mongol filimkan wuxuu ahaa Sulfur labada film marka la isku daro lacag waxay soo xareeyeen 542 karoor bay soo xareeyeen halka Heritage Roshan labadiisi film sanadkan uu keenay filimkii War ee isagu tagar ay wadeen iyo filimkii Super Sodom uu xisaabaadka kaga hadlayay Heritage labadaas film wuxuu ka helay lacag dhan 463 karoor halka Akshay film uu ka helay oo soo baxay sanadkan 542 karoor kanuna 463 karoor marka Akshay Kumar waxa uu garaacay sanadkan ninka ugu khatarta badan filmada Hindiya ninka lagu magacaabo Heritage Roshan oo bariyahan actionada iyo filmada khatarta badan looga yaabay marka Heritage uu qirtay in sanadkan laga badiyay Akshay Kumar uu ka badiyay marka uu isdiibay sanadkan dhan kalena waxa ugu muhiimsan waxa kamid ah toddobaadkan filmada Hindiya Heritage Roshan ayaa loo doortay ninka ragga ee ugu shidan Aasiyo dhan waa ninka ragga ugu shidan ba yaani ugu quruxda badan ama ugu shidan ayaa loo doortay sanadka 2019ka waxa cod bixin la qaaday lagu codeeyay in sanadka 2019 inuu yahay ninka ugu shidan inta badan indhihiisa ayaa la shaqmaan waxa loo dooranay ninka ugu indhaha qurxoon dunida baa loo dooranay ya marka hadda waxa la yiri Aasiyo dhan maadaama Hindiya Aasiya ka dhisan ka tirsan tahay Aasiyo dhan waa ninka ugu shidan baa lagu leeyahay sanadka 2019ka Heritage ninka shidan Aasiya kuma nool baa lagu leeyahay waliba waxa loo arkaa 10kii sano la soo dhaafay waa codayn laga sameeyo London waxay cadeynaysaa 10kii sano la soo dhaafay in ninka ugu shidnaa ee ka soo baxay Aasiya inuu ahaa Heritage Roshan oo sanadka 2019 loo doortay ninka ugu shidan wadankan ama ugu Aasiya dhan ama ugu quruxda badan Heritage marka aad ugu mahadceliyay taageerayaashii u codeeyay ee u doortay isagu inuu yahay ninka ugu shidan sanadka 2019 Aasiya dhan codeyntu waxay inta ku sii daraysaa codeyn lagu qabtay London waxay cadeynaysaa inuu yahay kii ugu fiicnaa 10kii sano la soo dhaafay Aasiya ugu quruxda badnaa toddobaadkan waxa aad u dabaaldegayay labada is dhashay Amitabh Bachchan iyo wiilkiisa Abhishek Bachchan oo toddobaadkan waxa ay ka soo wareegatay muddo 10 sano ah filimkii Ba oo ay wadeen labada is dhalay laakiin waxa yaab lahayd filimka Amitabh Bachchan Abhishek buu dhalay Soomahan filimka Abhishek ayaa Amitabh dhalaya Amitabh muxuu taani weeyahay alla muxuu actor weeyahay bal fiiri nooc walba ayuu filim ku soo jiray actor weyn oo legendary weeyaan kan bal fiiri wiilkiis ayaa filimkan aabugu ahaa baraha bulshada ay todobaad ku soo xasuusiyay taageerayaasha Amitabh Bachchan wuxuu leeyahay 10 sano waxaan u dabaaldegaynaa filimkii anigii wiilkayga Ba waliba filimka bal fiiri kan la wada dush lagu taqana cal dheer waa Amitabh Bachchan dush ku wada ka war Abhishek baana dhalay يا فيلمك سيدا عادي waxay tahay Amitabh Abhishek dhalay laakiin filimkan waxa lagu jilayaa Abhishek ayaa qofku saarsan yahay Amitabh
dhalay baa lagu leeyahay nin kala saarsan Amita lagu leeyahay wajigaas taa ku keenay film Amita waa actor inama caadin wajigaas buu film ku jiray ka war qaabka uu film ku jiray marka 10 sano ayaa laga joogaa filmkii ba Abishak uu dhalay aabiisa ku dhalay Amita Jay Devgan wali wuxuu dabaaldagayaa filmkiisii boqolaad filimada Hindi uu keenayo ka soo bilow filmkiisii ugu horeeyay Paul Aurkanti ilaa filmka hadda uu soo waday Tanhaji ninkan wuxuu joogaa 100 film waxaanu hadda filmku soo wado uu yahay Tanhaji waana filmkiisii boqolaad uu keenay actor-kan weyn baraha bulshada dadkan wuxuu soo gelinayaa muuqaalo laga soo bilow filmkiisii ugu horeeyay uu keenay iyo filmkiisii boqolaad oo taariikhiga filmkiisii taariikhiga boqolaad waxa la jiri doona xaaskiisa Kajal sidoo kale filmku waxa kula jiri doona Saif Ali Khan sidoo kale filmku waxa ku jira Sanjay Dutt Sharma iyo kuwa kale filmkan waxa lagu wadaa in la sii deeyo 10ka bisha January Kareena Kapoor waxay cadeysay qofkii ugu horeeyay ee u sheegtay uurkeedii ugu horeeyay ee qaaday ee ay ku dhashay wiilka yar ee Tamir Ali Khan oo u dhashay actor-ka weyn Saif Ali Khan waxay u sheegtay Shahid Kapoor ninkay kala tageen saaxiibka ay ahaayeen no waxaan u sheegay tir qofkii ugu horeeyay aan u sheegay uurkeyga leedahay waxa uu ahaa ninkeyga odaygeyga Saif Ali Khan maxay yeelay ma jirta ay leedahay farxad ugu farxad badan yaa amaan loo farxad badan ma jirta bay leedahay Tamir ayaana hadda mid kamida wiilasha ay dhaleen actorada Bollywood ugu caansan marka waxay leedahay odaygeyga baan u sheegay bay leedahay markii ugu horeysay uu qaaday dhan kale Akshay Kumar ayaa dhalilay directorada weyn Akshay Kumar wuxuu leeyahay anigu waxaan la shaqeynayaa uu leeyahay directorada yar yar ee cusub directorada cusub ayaan la shaqeynayaa uu leeyahay maxay yeelay uu leeyahay directorada weyn anigu ma doonayo in film diibaan buu leeyahay يا دايركترada waaweyn inay aniga fursad isiyaan ila shaqeeyaan ma doonayaan buu leeyahay marka Akshay Kumar wuxuu leeyahay anigu daayireetarada yar leen baan ku haystaaba hadda filimku soo wado isaga iyo Kareena ay soo wada maadaama hadda Kareena ay leedahay uurka ugu horninkii uu sheegay leedahay hadda filim uurka bay soo wada oo ay la wado yani uur ay leedahay bay wada oo ay la wado actor-ka weyn ee Akshay Kumar bay la soo wada filimkaasna hadda lagu wado inuu soo baxo dhawaan baa lagu wadaayo waxaana magaciisu yahay Good News wuxuu soo bixi doonaa 27 bishan aan ku guda jirno December ayuu soo bixi doonaa marka Akshay Kumar filimka ninka wada waa director cusub wuxuu leeyahay anigu directorada yar yar ama directorada cusub ayaan ku haystaa maxaa yeelay kuwa waaweyn film ima dhibayaan buu leeyahay marka directorada uu galaya odagoo waa ka ugu dambeyntiina filimkii Dangal ee lagdinta ahaa ee uu waday actor-ka weyn Amir Khan waxa loo doortay filimka 10kii sano ugu fiicnaa Hindiya ee adduunyada ka soo xareeyay dhaqaalaha ugu badan waxaana uu yahay blockbuster-kii ugu weynaa ee filimada Hindiya marka aad joogto Hindi ayaa tahay filimada Hindina waa jeceshahay laakiin sidee filimka looga daawan karaa dunida dacaladeeda ayaa wax kale oo muhiimsan haddaba Amir Khan filimkiisii 2016 ee Dangal waxa uu dhaafay baa lagu leeyahay lacag 200 oo kun oo karar wala 200 oo karar ayuu dunidu ka dhaafay yaani box office-ka dunidu marka loo fiiriyo dunida filimkan sidee looga daawaday dhaqaalaha ugu badan ayuu soo xaray filimkan taas oo ka badan 10kii sano la soo dhaafay filim kasta oo Hindiya waxaan uu yahay filimkii blockbuster ugu weynaa ee taariikhda Hindiya baa la sheegayaa sida uu soo warinayo Yahoo Indian Sport waliba Yahoo Indian Report sida ay soo warinayso waliba filimka kan ayaa marka waxa uu yahay lagu leeyahay filimkii Hindi ugu fiican dhaqaalaha ugu badan ka soo xareeyay dunida muddadii 10kii sano la soo dhaafay waxaana filimka labaad uu noqday filimkii Barijera Bajan ee uu waday actor-ka Salman Khan sidoo kale filimka saddexaadna waxa noqday filimkii Amir Khan ee BK hadaba filimadaas waxa soo raacay 10ka filim ugu fiicnaa waxa soo raacay filimka Tiger Zindagi Hai Dom 3 Sanju War Chennai Express iyo Dibang marka waxa lagu leeyahay filimkii uu waday Amir Khan ee Dangal ee lagdinta labada yar yar gabadho la jiray waxa uu noqday filimka dhaqaalaha ugu badan dibadda ka soo xareeyay ee Hindiya taariikhda waxaanu noqday blockbuster-kii ugu weynaa muddo 10 sano Hindiya toddobaadka iyo aflaamta Hindiya inta aan gabagabeynaayo waxa noo balana mid ka xiga oo aan idin soo gudbin doono haddana isbuuca qisooyinkii ugu weynaa aflaamta Hindiga anigoo qorbada la socodsiinay nabadgelyo